waxaa magaalada Jowhar soo gaaray guddi xaqiiq raadin oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana wafdiga guddigani hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya kadib soo dhaweynta waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sharaxay ujeedada safarka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya u timid magaalada Jowhar. وقتكم بنا هين وحيل السعودية وزير كارمها بدها وزير دعالة وزير كوحبر الشدة عبد الرحمن مقدس أنا مخنمي فرحت إنه هنا أصحابه كنا صبوا إنه حرمت عن الجورات كثير شغلة عملت كوه أنا وانمي أقدر أفرح سنة هاي دال إنه يراعى وبريتنا ويدنا شوينا وشيء ده صفقة يكون حوي إنه دت كديجان كرقم مؤسسات ما أنا ورقنا ولا شيء كيسنا أنا دت كنا أنا ورقنا سوية مركز لا يعاو شوينا إلى يبريتو مشاكل سننا وسرقنا مركز دكتور وفرناينا أد بانو فرحنا هي سودوين وناكسن يصير روقة بشان لما تبقى وناكسن وناكسن imaanshaha guddigani ayaa waxaa ku soo beegmaysa xilli uu madaxweynaha maamulkani Hirshabelle uu ku eedeeyay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay faragelin ba'an ay ku hayso siyaasadda maamulka Hirshabelle. Fartuun Abdiraxmaan Aadan, Ariel TV, Jowhar.